عبد الفتاح نور متان oo kamida musharaxiinta u taagan kamid noqoshada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo warbixinta warkani waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Mas'uud Cabdullaahi Aadan waxa maanta magaalada Kismaayo soo gaaray musharax xildhibaan Cabd Fataax Nuur Matan oo u taagan kamid noqoshada xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo dhawaan la soo dhisi doono musharaxa ayaa markuu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay salaadiin wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo soo dhaweynta kadib waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah salaadiintii soo dhaweysay iyo dadweyne kale oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin in musharaxani uu isku soo taago inuu ka mid noqdo xubin kamid ah baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayagoo sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan Nuur Matan xildhibaan ku soo dhawow Bahdaadi iyo Jubbaland iyo magaalo madaxda Kismaayo haddana musharax u ah mar labaad iyo mar saddexaad inuu markii labaad musharax u ah inuu ka qayb qaato xildhibaanada dawladda dhexe waan ku soo dhaweynaynaa waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xildhibaanka Cabd Fataax Nuur Matan oo maanta ka imaaday magaalo madaxda Soomaaliya Muqdisho halkaas oo ku soo ambabaxay Jubbooyinka dhexe Kismaayo waan ku soo dhaweynaynaa waxaan u soo dhumo isagoo musharax u ah dawladda federaalka waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay kii soo barbaara dalkiisa dadkiisana wuxuu qabtaa Allah ka dhigo musharax xildhibaan Cabd Fataax Nuur Matan wuxuu sheegay hadii uu ka mid noqdo xubin ka mid ah baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya in wax badan uu ku soo kordhin doono deegaanada Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in dalka laga faa'iideysto xilligan uu ku jiro isbedelka waxaan marka hore salaamayaa dhammaan shacabka reer Jubbaland iyo shacabka igu soo dhaweey garoonka Kismaayo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mar labaad ku soo noqdo magaalo madaxda ee kumeel gaarka ee Jubbaland ee Kismaayo anigoo u taagan mar labaadna u sharaxan xubinta baarlamaanka dawladda dhexe waxa kale oo u mahad celinayaa dhammaan shacabka reer Jubbaland iyo madaxda dawlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeya madaxweyne Axmed Madoobe iyo golahiisa wasiirada iyo golaha xildhibaanada ee Jubbaland iyo dhammaan ciidanka Jubbaland oo runtii aan aaminsanahay oo martigeli doorashada dawladda dhexe in lagu soo xulo magaalada aan hadda ku sugannahay aan aaminsanahay in amnigeeda ay ka wada qayb qaateen shacabka reer Jubbaland iyo madaxda maamulka gobolka maamulka Jubbaland waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo horay u ahay xildhibaan dawladda federaalka haddana u taagan mar labaad xubintii ayada ahayd waxaan aaminsanahay wax qabadkii 4 sano ee la soo dhaafay anigoo runtii ka hor akhrin doona waqtiga doorashada ee codaynta aan aaminsanahay qof walba oo musharax ama horay xil ha u haya ama midka hadda raadinayba waxa weeye looga baahan yahay inuu wax qabadkiisi hore iyo wax qabadka waxa weeye uu la yimaad doona inuu waxa weeye soo bandhiga ayadoo aan aaminsanahay oo aan rajaynayo haddii Ilaahay yiraahdo xilkan haddii la ii doorto inaan waxa weeye wax badan ka bedeli doono dhammaan deegaanada Jubbaland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaan aaminsanahay inaan wax qabad runtii la taaban kara shacabka waxa weeye ay ku diiradaan dhammaan gobolada Jubbaland ee 3 gobol Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gedo aan aaminsanahay inaan waxa weeye xirfadeedii iyo aqoonteedii iyo waxa weeye intaba aan leeyahay inaan soo bandhigi doono haddii la ii doorto haddii Ilaahay idma 4 sano ee soo socota baarlamaanka hoose ee dawladda federaalka